السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ku xiran channelkayga marka la soo dhawaada aad iyo aad ugu mahadsantiin daawashada meel kasta aad joogtaan iyo waliba si kasta oo aad daawanaysaan. maanta waa talaado 9 bisha shanaad sanadka 2023 waan soo laabtay safarkii aan Afrika ku maqnaa shalay ayaan wadanka dib ugu soo laabtay alxamdulillah. ilaah waa in nabad keenay halkan ayaan howlaheennii ka sii wadi doonaa haddii alla idmo. maalmahan waxaan arkayay dad fara badan oo comment soo qoray oo arrimaha codka muuqaalada aan soo gelinay ka cabanayay ciladii jirtay waan fixi karay. waxaan filayaa hadda wixii ka dambeeya codka inaad si wanaagsan aad u maqli doontaan. waxaan rabaa muuqaalkan inaan uga hadlo arrinta la xiriirta xadka Mareykanku la wadaago Mexico. waxaan ognahay Title 42 in uu ku eg yahay maalinta Khamiista ee soo socota. hadda waxaa ka dhiman maalinta beri ah oo Arbaca oo kaliya. Title 42 oo Public Health Emergency 11 bisha ayaa dhamaantood bala qaadaya. Title 42 sharcigan markiisii ugu horeysay waxaa la sameeyay sanadkii 1944 laakiin madaxweynihii hore Mareykanka Donald J Trump ayaa isticmaalay markii cudurka coronavirus ka guud ahaan wadanka uu ka dilaacay bishii March ee sanadkii 2022. in ka badan 2 milyan oo qof ayaana iyadoo sharcigan Title 42 la adeegsanayo loo diiday wadanka inay soo galaan arrimo la xiriira caafimaadka dadweynaha Mareykanka. sidoo kale talaadadii hore toddobaad ka hor oo aqalka cad waa kii ku dhawaaqay in 1500 oo ciidamo dheeraad ah loo dirayo xadka isla markaana waxa la filayaa in maalinta beri ah oo Arbaca ciidamadaasi ay xadka gaaraan. laakiin gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa isaguna maalnimadii shalay ahayd waxa uu ku dhawaaqay in ciidamo uu ugu magac daray ciidamada la yiraahdo Texas Tactical Team oo dhawaan la sameeyay in ciidamadaasi uu shalay ku daadgureeyay dhinaca xadka gobolka Texas oo la wadaago Mexico. ciidamadan waxa uu yiri dhawaan ayaa la tababaray iyaga nafsad ahaantooda waxayna caawin doonaan ciidamadii ilaalada qaranka ee horay gobolka Texas uu u geeyay xadka. ujeedada marka ciidamadan loo tababaray waxay tahay in ay ogaadaan meelaha dadka sharci darada ah ay ka soo dusayaan oo ay ka soo galayaan gobolka Texas in meelahaasi ay ilaaliyaan oo ay buuxiyaan. isla markaana sidoo kale waxa uu sheegay in ay dib u celin doonaan dadka sida sharci darada ah dhinaca Texas uga soo galaya wadanka Mareykanka. Texas waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee wadanka laga soo galo gaar ahaan El Paso iyo Brownsville meelahaasi oo wasiirka amniga gudaha Alejandro Mayorkas uu booqday Khamiistii iyo Jimcihii. laakiin waxa uu yahay gudoomiyaha gobolka Texas nin Republicana isla markaana si aad uga soo horjeeda siyaasadaha xadka iska furan ee maamulka madaxweyne Joe Biden oo wada waxuna taageersan yahay siyaasadihii hore ee Trump. marka waxa uu yiri waxa ay ciidamadan hadda oo shalay uu ku daadgureeyay xadka oo la yiraahdo Texas Tactical Team-ka waxa uu sheegay in ay dadka sida sharci darada meelaha ee gobolka Texas ay uga soo galayaan in ay tagi doonaan isla markaana dadkaasi ay dib u celin doonaan. waxaana sidoo kale uu xaqiijiyay in aysan u ogolaan doonin dadkaasi sharci darada ah in ay ka soo galaan gobolka Texas meelaha aan loogu talagelin in si sharci darro ah looga soo gudbo. waxa uu yiri Title 42 haddii uu meesha ka baxo diyaar ayaan u nahay yiri in aan xadkeena sugno. waxa uu sidoo kale dib u bilaabay basaskii dadka soo galootiga uu saarayay isla markaana uu dirayay gobolada dimuqraadiyiinta ama magaalooyinka maayarada dimuqraadiyiinta ay maamulaan sida New York, Chicago, Philadelphia, caasimadda DC. hadda ayuu dib u bilaabay oo durbaba duqa magaalada New York Eric Adams waxa uu qayladaan ayuu soo diray. waxa uu leeyahay waa magaalada New York dadkan soo galootiga waa ay ku bateen sida darteed in degmooyinka dariska la ah ayuu isku dayaa inuu gaarsiiyo iyagana waa ay ka soo horjeestaan. waxay leeyihiin dhibkiina New York adinka haydu ka ekaado anaga ha noo soo gudbinina. sidoo kale maayarka magaalada Chicago haweeneyda la yiraahdo Lori Lighthoff oo iyadoo hadda xilka ka dhageysa toddobaad kadib oo doorashadii ku guuldareysatay ayaa sidoo kale sidaasi sameysay. waa ayna diideen degmooyinka Chicago ku dhow in dadkaasi sharci darada ah loo soo diro. hadda waxa la leeyahay 3 maalmood gudahood 26,382 qof ayaa ciidamada xadka isku soo dhiibay halka 7,399 ay noqdeen godaways waxa loo yiraahdo oo meelaha aan loogu talagelin laga soo galo ayay ka soo galeen ama darbiga hoostiisa ayay ka soo duseen ama darbiga ayay ka boodeen. marka 7,399 meelaha sharciga loo iska soo dhiibay ma aysan iska soo dhiibin. waana 3 maalmood gudahood 26,382 3 maalmood gudahood ayaa hadda ciidamadu ay gacanta ay ku dhigeen oo sharci darrada doonaya wadanka inay ku soo galaan. marka maxaad malayn kartaa marka hadda iyadoo 3 maalmood ay arintaasi dhacayso waxa la leeyahay Title 42 marka uu meesha ka baxo Khamiista
10,000 ilaa iyo 13,000 ayaa maalin kasta isu soo dhiibi karta. Hadda dadka maalin kasta isu soo dhiiba waa 7,700 ayaa la leeyahay. Marka tiradaasi aad ayay u fara badan kartaa. Marka dowladdu diyaar garowgaasi ayay u gashay. Maamulka madaxweyne Joe Biden marka sharciyo adag ayuu soo rogayaa sida aan hore idinku sheegay. Sharciyadaasi waxay yihiin in la dedejiyo masaafurinta gaar ahaan wadamada Latin America dadka faraha badan ee ka imaanaya in masaafurinta la dedejiyo oo dadkaasi si degdeg ah wadankii ay ku yimaadeen dib loogu celiyo. Qofkii la masaafuriyana waxaa laga mamnuuci doonaa in ku dhawaad muddo 5 sano ah uusan wadanka dib ugu soo laaban karin. Marka sharciyadaasi ayaa maamulka madaxweyne Joe Biden uu dardar gelinaya. Waa kii wasiirka amniga gudaha Khamiistii iyo Jimcihii booqday xadka gaar ahaan dhinaca Texas, isla markaana waxa uu sheegay inay u diyaar garoobeen qulqulka la filayo marka Title 42 meesha uu ka baxo dadkaasi faraha badan ee doonaya Mareykanka inay ku soo dhiiradaan ama hadda dhinaca Mexico jooga oo ku sugaya amaba sidoo kale wadada ku soo jira. Sidoo kale waxaan idin sheegay toddobaadkii hore in xubnaha Republicanka oo hadda aqlabiyadda aqalka hoose iyagu leh inay diyaarinayaan sharci immigration. Sharcigaasi waxay ugu magac dareen Secure the Border Act 2023. waxaa la filayaa Khamiista inay u codeeyaan. Laakiin durbaba madaxweyne Joe Biden waa uu ka soo horjeestay sharcigaasi. Waxa uu yiraahday haddii uu miiskiisa soo gaaro in uu codka veto-ga oo qayaxan uu sharcigaasi u isticmaali doono. sanadka inuu ka gudbayaba ila ma ahan maadaama aqlabiyadda aqalka hoose Republicanka hadda ay leeyihiin sharcigaasi marka maxuu ximbaarsan yahay maxayse doonayaan in ay sharcigaasi oo ku jira oo Republicanku ay doonayaan inay sharcigaasi ku soo daraan. waxyaabaha ay doonayaan waxa kamid ah siyaasadii hore ee Trump inay dib u soo celiyaan. waxa kamid ah Remain Mexico siyaasadii ahayd oo ah in dadka lagu celiyo dhinaca Mexico inta maxkamadaha immigrationka ay go'aan ka gaarayaan kiiskooda magangelyo doonka oo gudaha Mareykanka loo ogolaan. waxa kamid ah in dib loo bilaabo dhisitaanka darbigii Trump uu dhisayay oo isagoo qabyo ah in doorashadii looga guuleystay oo hadda meelaha qaar qabyo ah in la dhameystiro darbigaas ayaa ku jirta sharciga. waxa sidoo kale ku jirta in caruurta iyagoo da'yar oo 18 sano aan gaarin oo waalidiintood aysan la socon hadda maamulka madaxweyne Joe Biden waa uu soo dhaweynaya oo dib u maceliya. laakiin sharcigan hadda Republicanka ay wadaan waxa ku jira in caruurta xitaa haddii ay 18 ka yaryihiin oo aysan waalidiintood la socon in la masaafuriyo. Trump waxaan ogeyn in caruurtooda iyo caruurta iyo waalidiinta uu kala reebay oo xabsiyo uu ku hayo oo xitaa caruurta iyo waalidiintii ay kala lumeen oo maamulka madaxweyne Joe Biden markii uu xilka qabtay uu sameeyay guddi dib isugu raadiya caruurtaasi. walow hadda bishii hore ay markale soo baxday Biden inuu doonayo in siyaasadaasi markale isaguna uu isticmaalo. marka sharciyadaasi ayaa ku jira ilaa iyo saddexdaasi sharci in darbiga la dhameystiro oo Trump isagoo qabyaha uu ka tagay siyaasadii Remain Mexico in la soo celiyo iyo xitaa caruurta da'doodu 18 ay ka yartaa waalidiintooda ay la socon haddii ay soo dhiibaan in caruurtaasi la masaafurin karo. saddexdaasi waxyaabood ayaa ku jirta. marka maamulka madaxweyne Joe Biden arintaasi waa uu ka hadlay. waxa uu yiri waa aan doonaynaa in Congress-ku uu sameeyo sharciyo wax ka qabto caqabadaha ka taagan dhinaca xadka, laakiin arintan xaaladda ayay sii xumeynaysaa oo sharcigan waxa uu yiri xaaladda ayuu sii xumeynaya laakiin waxba ma wanaajinayo. sida muuqata marka maamulka madaxweyne Joe Biden nafsadahantiisu waxa uu leeyahay sharcigan haddii uu ka soo gudbo labada aqal oo hadda aqalka hoose aqlabiyadda Republicanka ayaa iska leh sanadka si uu uga soo gudbayo maadaama aqlabiyadda ay leeyihiin dimuqraadiyiinta lama oga. laakiin haddii uu ka soo gudbo waxa uu yiri codka veto-ga ee qayxanaya sharcigaasi uu isticmaali doonaa. Republicankuna waxa la filayaa inay Khamiista soo socota oo hadda berri oo kaliya ay naga harsan tahay waa maalinta Title 42 oo meesha ka baxayo in ay doonayaan inay sharcigaasi ay u codeeyaan Secure the Border Act 2023 ayaa la yiraahdaa. marka walaac badan ayaa jira oo ku aadan sidee xaaladdu noqon doonta maadaama hadda wasiirka amniga gudaha markii uu booqday Khamiistii iyo Jimcihii dhinaca Texas xadka meesha uu kala wadaago gobolka Texas waxa uu yiri xadku ma furnayn mana furnaan doono marka la gaaro 11 bisha May wixii ka dambeeya oo wuxuu yiri xadku gabi ahaanba waa uu xiran yahay waana ammaan waana u diyaar garoobayna ayuu yiri dadka doonaya inay si sharci darah ku soo galaan wadanka sidii aan wadanka sida ugu dhaqsiyaha badan aan uga masaafurin lahayn. marka ciidamada waa la kordhiyay iyadoo hore 2500 ay u joogeen maalinta beriya 1500 ayaa gaaraysa dhinaca Texas. waa kan hadda sidoo kale ciidamada Texas Tactical Force la yiraahdo oo u diray xadka. marka ciidamada waa la sii badinaya dad fara badan waxay doonayaan inay ku soo dhiiradaan laakiin inta badan masaafurintan waxay saameynaysaa dadka wadamada fara badan ay ka imaanayaan. waxaan filayaa Soomaaliya in aan laga helaynin diyaarad ilaa iyo xitaa 20 qof oo hal mar isu soo dhiibay. marka dadka wadamada yar ay ka soo haajirayaan waxay u badan tahay inaysan masaafurintu aysan u saameynin sida ay u saameynayso dadkan wadamada Latin America oo dadkan faraha badan ay ka imaanayaan. marka waxaa laga yaabaa in wadan in ka badan 10 qof ama 5,000 ama 10,000 ay iska soo dhiibto wadanna 10 qof ama 20 qof ay iska soo dhiibto. marka
dadka tirada yar ee wadamadaasi ka soo haajiraya waa ay ka fursad fiican yihiin marka dadkan tirada badan ee wadamada Latin America ee kala duwan ka imaanaya marka wayna arki doonaa qamiista wixii ka dambeeya iyo sida dawladdu ay tilaabooyinka ay qaado walow hadda ay sheegeenba in sharciyadaasi adag ay soo rogayaan oo ah in dadka si degdeg ah lagu masaafurin doono isla markaana laga mamnuuci doono wadanka muddo 5 sano ah inay ku soo laabtaan aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada meel kasto aad joogtaan iyo waliba si kasto aad daawaneysaan intaan mar kale kulmi doono وصاحبكن علم وارو إذن للسدائيو نبت قليو